nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba wakhti walba oo aad adigu jeceshahay magacaygu waa Shine Gestir daawade waxaan caawa videon gaaban aan kugula wadaagayaa cashir muhiim ah oo ka mid ah cashiradeenii taxanaha ahaa ee xisaabta jajabta taasoo ciwaankeedu yahay change improper fractions to mixed fractions u bedel jajabyo maqumane ah jajabyo dhafan halkan waxaana la yiraahday u bedel jajabyada hoos kaaga muuqda jajabyo dhafan waxaa halkan naga muuqda laba tusaale oo ah jajabyo maqumane ah oo aan rabno inaan u bedelno jajabyo dhafan marka sidee baa loogu bedelaa jajabyo dhafan daawade markii aad rabtid inaad jajabyada maqumanaha ah aad u bedeshid jajabyo dhafan waxaa laga maarmaan ah inaad taqaanid xisaabta isku qaybinta haddii aad taqaanid waxay macnaheedu tahay waxaad awood u leedahay inaad jajabyada maqumanaha ah aad ka dhigtid jajabyo dhafan waxaan dhahaynaa marka koowaad 33 loo qaybiyey 5 waa imisa 33 loo qaybiyey 5 tirada 5ta lagu dhufto ee keenta 33 ama u soo dhaweysa waa tiradee waxaan ognahay inay tahay 6 lagu dhuftay 5 waxaan ognahay inay tahay 30 markaas waxaan dhahaynaa 33 laga jaray 30 waxaan ognahay inay tahay 3 daawade tiradan kor ka saaran waa tiro idin markii tirooyinka mixed fractionka aad sameynaysid tiradani waa tiradii idled tiradanna waa hooseeye waxaa u sameynayaa si aad u xasuusatid hadhow hooseeye tiradanna waxay noqonaysaa sareeye sidaa darteed 33 shanaad waxay la mid tahay marka laga dhigayo tiro dhafan tiro idil oo ah 6 haye iyo tiradan oo ah tiro sareeye 3 oo ah tirada sareeye ah iyo 5 oo ah hooseeye sidaa darteed 33 shanaad waxay la mid tahay 6 3 shanaad sidaas ayaa waxaa looga dhigaa tirooyinka improper fractionka tirooyin mixed fraction ah waxaan rajaynayaa inuu tusaalaha koowaad uu wax yar ku iifiyey tusaalaha labaadna aad wax badan kusii fahmi doontid waxaan dhahnay markii aad tirooyinka ama jajabyada maqumanaha ah aad rabtid inaad ka dhigtid jajabyo dhafan waxaa laga maarmaan ah oo kaalin libax ka qaadanaysa inaad taqaanid sida la iskugu qaybiyo xisaabta waxaan dhahaynaa 14 loo qaybiyey 3 tirada 3 lagu dhufto ee keenta 14 waa tiradee ama u soo dhaweysa waxaan ognahay inay tahay 4 lagu dhuftay 3 waxay keentaa 12 14 laga jaray 12na waxaan ognahay inay tahay 2 waxaan dhahnay tiradani waxay ku noqonaysaa hooseeyaha hooseeye tiradanna waa tiro idil tiradana waxay ku noqonaysaa sareeye sidaa darteed 14 saddexaad waxay la mid tahay tiro idil waatana waa 4 haye 2 saddexaad sidaas ayaa waxaad uga dhigaysaa tirooyinka improper fractionka ama jajab maqumane ah jajabyo dhafan improper fraction to mixed fraction waxaan rajaynayaa daawade inuu video gaaban ka anfacay mawduucan caawa ka hadlayno intii aan video lamida ku kulmaynana waxaan kuusi dhaafayaa nabadgelyo
korkaaga